saaxiibayaal maalin wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena duhurnimo ee maanta dhacdooyin kala duwan oo bariga dhexe ku saabsan iyo caalamkaba ayaanu barnaamijkan kusoo qaadan doonaa oo waxaa kamid ah ra-iisul wasaaraha maamulka Israel Benjamin Netanyahu ayaa dhammaadka bishan la kulmaya madaxweyne Donald Trump waxaana la ogaaday qorshaha iyo ujeedka safarka kaas oo ah in Netanyahu uu dabcan usoo bandhigi doono una sharxi doono Trump suurtagalnimada iyo qorshaha ku aadan in dabcan Israel ay weerar cusub ay ku qaado wadanka Iran qodobkaasi ayaanu si gaar ah barnaamijka aynu ugu falanqeyn doonaa waxaan kaloo qeybaha kale ee barnaamijka kusoo qaadan doonaa sirdoonka dowladda wadanka Mareykanka iyo kuwa reer galbeedka ayaa si wada jir ah u xaqiijiyay in madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin uu diyaarinayo qorshe uu si dhameystiran uu ugu qabsanayo wadanka Ukraine iyo qeybo kamid ah bariga qaaradda Yurub arintaasina dabcan waxa ku saabsan iyo sidoo kale faahfaahinteeda ayaanu idin haynaa waxaan sidoo kale eegi doonaa taliyaha sirdoonka ee wadanka Turkiga iyo hogaamiyaha kooxda Hamas ayaa wada yeeshay baaliri kulan dabcan xasaasi ahaa kaas oo ujeedkiisu ahaa wajiga labaad ee heshiiska xabad joojinta ee magaalada Gaza iyo ciidamada halka iman doona Turkiga talooyin wax ku oolahay uu siinayaa reer Falastiin uu la talinayaa qorshaha ayuu u sheegayaa iyo shaxda sida ay tahay waanu idin haynaa faahfaahin ku saabsan sidoo kale waxaan u eegi doonaa dowladii wadanka Lubnaan ra'iisul wasaarahooda ayaa xalay mar kale soo hadlay oo waxa uu yiri wajiga koowaad ee qorshaha aanu hubka uga dhigayno kooxda Hezbollah ee koonfurta ee Lubnaan ku joogta ama ku sugan maalmaha soo socda ayaanu dhameyn doonaa kooxduna dabcan arintaasi dagaal bay ka xigtaa waanu idin haynaa waxaan kaloo barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa warar dabcan yaab leh oo kasoo baxaya bariga dhexe waatii shalay inuu kasoo hadalnay Mareykanka inuu duqeeyay ilaa iyo 70 goobood oo wadanka Suuriya ka tirsan oo dabcan uu argudayay askar ka tirsan Mareykanka oo lagu dilay weerar Suuriya ka dhacay waxa yaab kale hadda soo baxay waxa weeye diyaaradaha dagaalka ee wadanka Jordan ayaa iyaguna ku biiray duqeynta oo duqeeyay gudaha wadanka Suuriya ila military oo arintaasi xaqiijinaya ayaanu idin haynaa waxaan kaloo qeybaha kale ku eegi doonaa Trump ayaa dabcan waxa uu dib u isaga riixay oo uu diiday soo jeedin ka timid ra'iisul wasaaraha Netanyahu soo jeedintaasi oo ah in cunaqabatayn lagu sii hayo wadanka Suuriya oo aysan Suuriya sinaba aysan u dhaqaaqin laakiin arintaasi Trump wuxuu yiri suuragal ma ahan wadankan iyo hogaamiyahooduba dhammaan cunaqabateynadii Mareykanka hore uu u saaray iyo xayiraadihii waa laga qaadayaa waanu idin haynaa arintaasi waxa Suuriya ay dabcan ay ka tiri iyo xaalka sida uu yahay jabi ahaantiisaba haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe inoo saar dhacdooyin kuwan la mid ah ayaanu si maalinle ah halkan aynu u soo gelinaa marka hore barnaamijkeena waxa aynu ku bilaabaynaa ra'iisul wasaaraha maamulka Israel oo dhammaadka bishan December tegaya dalka Mareykanka halkaas oo uu kula kulmi doono madaxweyne Donald Trump waxa hadda soo baxay oo la ogaaday ujeedka safarkiisa iyo sidoo kale waxa isaga iyo Trump ay ka wada hadlayaan haddaba sida idin muuqanaysa ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa isku diyaarinaya inuu Trump uu ku qanciyo weerar wadajir ah oo ay Israel iyo Mareykanka ay ku qaadaan wadanka Iran isagoo la wadaagaya arintaasi Trump waxa uu sheegay qatar haddii aan laga hortagin uu Mareykanka uu ka shalayn doono sida ay baahisay warbaahinta NBC liiraahdo iyo kuwa kale oo dabcan gudaha wadanka Mareykanka ku sugan wuxuu ku andacooday Netanyahu inay hadda Israel ay dhisayso ama ay dhisayso gantaalo ka degdeg iyo ka khatar badan nuclearka waxa uu yiri baaliri Netanyahu Iran waxay hadda dhisaysaa buu yiri gantaalo ka degdeg iyo ka khatar badan nuclearka oo loo baahan yahay in si dhaqso ah awoodda military ee wadankan Iran loo joojiyo haddii waxa uu yiri Iran ay ku guuleysato gantaaladaasi degdega ah ee ka khatarta badan nuclearka taas waxay keeni doontaa buu yiri Mareykanka inuu ka shalayn doono haddaba Trump si degdeg ah uguma uu qaadi karo baaliri weerar ka dhan ah wadanka Iran oo wuxuu ka fogaan doonaa colaadii bariga dhexe in ay dib u soo dabcan noqoto
taasoo dabcan ku saabsan in xulafadiisa carbeed ay dabcan arintii weerarka lagu qaaday wadanka Iran ay aad uga soo horjeesteen kuwana ay yiraahdeen bariga dhexe ayaa dagaal ka bilaabaysa adiga oo qancinaya Israel ama danaha Israel ay wadato ka shaqeynaya haddaba weerarkan hadda ku socda ee uu Israel iyo Netanyahu qorsheynayaan inay ku qaadaan Hezbollah ku sugan koonfurta wadanka Lebanon ayaa sidoo kale waxa la ogaaday in ujeedkiisu uu yahay kooxdan awoodooda in hoos loo dhigo oo la duqeeyo si aysan ugu soo biirin haddii Israel ay weerar military ay ku qaado wadanka Iran waxa la isweydiinayaa Iran maadaama madaxeeda lagu korgortamayo oo Trump iyo sidoo kale Netanyahu ay dabcan ka hadlayaan qorshaha iyo sidoo kale in Trump la qanciyo si weerar wadajir ah loogu qaado wadanka Iran waxa la isweydiinayaa Iran miyay fadhidaa laftirkeeda dabcan ma fadhido taliyaha militariga ee dowladda wadanka Iran iyo sirdoonkooda ayaa saacadii la soo dhaafay laga soo xigtay inay yiraahdeen weerar kasta oo Mareykan iyo Israel oo wadajir nooga yimaado annaga awood waxaan u leenahay inaanu ka hortagno oo aan jabino weerarkaasi Iran waxay tiri weerarkiina lagu soo qaaday ee June sanadkan dhacay dabcan wuxuu ahaa weerar gaadma ahaa oo siyaasiyiinadeeni iyo sidoo kale madaxdeeni lagu beegsaday laakiin taa hadda ma dhacayso bay tiri Iran nidaam difaac hawo oo casri ah iyo sidoo kale hub qatar ayay bilihii la soo dhaafay ba ay ka shaqeynaysay waana tan hadda Netanyahu afkiisa uu ka qiranayo in Iran ay dhisayso gantaalo ka degdeg iyo ka qatar badan hubka nuclear-ka dabcan nuclear-ka waa hubka ugu weyn ee maanta adduunka yaala in Iran ay dhisto gantaalo ka degdeg badan kana qatarsan nuclear-ka waxay ku tusinaysaa sayniska iyo sidoo kale khubarada wadanka Iran ay haysato sida awood ay u leeyihiin inay hubka ay doonaan ay soo saari karaan iyagoo dabcan dagaal kula jira Israel iyo Mareykanka waayahay daawada aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag toddobaadkan marka ay kulmaan ama toddobaadka soo socda marka ay kulmaan Netanyahu iyo sidoo kale madaxweyne Donald Trump miyay kula tahay Trump inuu ku qanci doono qorshahan Netanyahu uu wado ee ah in Israel iyo Mareykanka ay weerar wadajir ah ay ku qaadaan wadanka Iran daawada sidoo kale ma kula tahay sida hadda Netanyahu uu sheegayo in Iran ay dhisayso gantaalo ka degdeg iyo ka qatar badan nuclear-ka oo loo baahan yahay in si dhaqso ah awoodda militariga wadanka Iran loo joojiyo Iran se daawada ma kula tahay sidii June oo kale weerarkii gaadmada lagu qaaday mid lamid ah ayaa lagu qaadi karaa oo saynisyahano kale iyo sidoo kale warshadaha hubkeeda ayaa sidoo kale weerarkaasi waxyeelo u gaarsiin karaa mise waxay kula tahay Iran inay diyaarsan tahay oo weerar kasta oo lagu soo qaado ay ka falcelinayso oo sidii hore ay hadda ka wanaagsan tahay Iran haddii labadan wadan ay dabcan dagaalka soo galaan may kula tahay xulafo inay heli karto sida Russia iyo Shiinaha dalalkan carbeed ee bariga dhexe degan qaarkoodse ma ka soo horjeesan doonaan in Iran weerar lagu qaado adigoo sidoo kale xusuusanaya in Iran iyo sidoo kale wadanka Sacuudigu heshiis ay ku gaareen magaalada Tehran maalmo ka hor oo wada shaqeyna waa tahay bal aragtidaada qaybtaasi nagula wadaag qaybaha kale aynu eegno sirdoonka Mareykanka iyo kan Europe ayaa si wadajir ah u xaqiijiyay in madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin uu diyaarinayo qorshe uu si dhameystiran ugula wareegayo wadanka Ukraine iyo qaybo kamid ah bariga qaaradda Europe oo horey uga tirsanaa midowgii Soviet gaar ahaan dalalkii la isku oran jiray Baltiga iyo sidoo kale wadanka Poland haddaba qiimeynta sirdoonkan oo la sheegay inay si joogto ah ay u wadeen ayaa sidoo kale xaqiijinaya inay dabcan ogaadeen in hay'adaha sirdoonka Europe iyo kuwa Mareykanka sanadii la soo dhaafayba ay dabcan baaritaan ku hayeen cabsida iyo weerarada Shiinaha oo Russia ka imanaya waxayna ugu dambeyntii sheegeen inay jiraan wada hadallo iyo sidoo kale hadallo rasmi ah oo ay jeedinayeen mas'uuliyiinta Mareykanka iyo kuwa Ruushka oo dabcan ku saabsan xaaladda wadanka Ukraine in la xaliyo laakiin waxay yiraahdeen labadan sirdoon wada hadalladaasi Trump iyo sidoo kale Russia dhexmaray madaxweynahoodu waa ay jiraan mooye Russia weli ma uusan joojinin kamana uusan baaqanin inuu duqeyntan ama inuu magaalooyinkan ama wadamadan uu qabsado sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters warbixinada sirdoonku waxay sidoo kale saadaalinayaan in Ruushka uu mustaqbalka u jihaysan karo
dagaal toos ah oo uu la galo gaashaanbuurta NATO. tani waxay si gaar ah walaac ay u abuurtay dalalka bariga qaaradda Yurub kuwaas oo u arka dagaalka Ukraine inuusan ahayn mid ku ekaanaya wadankaasi Ukraine balse uu yahay qayb qorshe ah isballaarin ah oo Ruushka uu wato taas oo ay tahay in hadda Mareykanka uu ka hortago iyo sidoo kale Yurub. Waa tahay waxa la isweydiinayaa Mareykanka iyo Yurub oo wada jira Russia miyay la dagaalami karaan Yurub se ma laga celin karaa arrintaasi bal qaybta hoose wala wadaag. Waa tahay daawade taliyaha sirdoonka ee wadanka Turkiga iyo hogaamiyaha kooxda Hamas ee dhinaca wada xaajoodida iyo siyaasadda Khaliil al-Haya ayaa shalay gelinkii dambe kulmay kana wada hadlay wajiga labaad ee qorshaha nabadda ee magaalada Gaza. warbixinadu waxay sheegayaan in dabcan taliyaha sirdoonka ee wadankaasi Turkiga Ibrahim Kalin iyo sidoo kale madaxa wada xaajoodida ee kooxdaasi dabcan in ay isku afgarteen meelna la isla dhigay dabcan inay ka wada shaqeeyaan qorshahan wajiga labaad ee heshiiska. Trump ayaa dabcan kalsooni buuxda oo xoogan waxa uu ku qabaa Turkiga oo ah inay wada xaajoodkan qayb weyn ay ka qaadan doonto, laakiin Israel ayaa u aragtaa isku soo dhawaanshahan iyo wada shaqeyntan Turkiga iyo sidoo kale Hamas inay khatar weyn ay ku tahay. wajiga labaad dabcan waxa uu dhigayaa arrinta ku saabsan ciidamada caalamiga ah ee soo galaya magaaladaasi Gaza iyo sidoo kale hubka dhigista kooxdan Hamas. walow shalay Trump uu sheegay iyo maamulkiisu in kooxda Hamas qayb ka mid ah hubkeeda ay haysan doonto haddii aysan hubkaasi ku weeraraynin Israel iyo sidoo kale qatarna Israel aysan ku ahayn. haddaba arrinta ugu weyn waxa weeye in Hamas ay raali buuxa ka tahay in Turkiga iyo sidoo kale wadamada Pakistan ay ka mid tahay ciidamadoodu inay qayb ka noqdaan howlgalka magaalada Gaza oo iyaga ayaa waxay leeyihiin haddii Israel dalalkii kale ay dooratay oo ay tiri kan ha yimaado kan yuusan imaanin annaguna door baynu leenahay oo waxaanu rabnaa Pakistan iyo sidoo kale Turkiga ciidamadoodu inay soo galaan magaalada Gaza si annagana waxa aynu rabno aynu halka uga aragno. laakiin Israel baa dhulka isku garaacaysa oo Turkiga diidan. Trumpna waxa uu rabaa in ciidamada Turkiga qayb ay ka noqdaan. xitaa xukuumadda Washington iyo Mareykanka waxay la hadashay waxay la hadashay Ethiopia ra'iisul wasaarahooda Abiy Ahmed ayadoo oo dabcan arrintaa ka shaqaysay Israel rabtana in Masar maadaama meesha ay ku jirto Masar cid la loolamaysa oo Ethiopia ah inay magaalada ay soo geliso oo halka la isla joogo. waxaase ogaataa in Soomaaliya laftirkeeda Masar ay imaanayso oo Ethiopia ay la soo galayso. marka dagaalka Ethiopia iyo Masar hadda Gaza ayuu wada galayaa. marka aragtidaada qaybta hoose qodobkaasi ku aadan nagula wadaag. waa tahay ileen yaab looma dhinto. waxaa soo baxay ra'iisul wasaaraha wadanka Lebanon ninka Israel ee Mareykanka la shaqaysta ayaa soo hadlay xalay. waxa uu yiri wajiga koowaad ee qorshaha aanu hubka kala wareegayno Xisbullah hubkana aanu kaga dhigayno maalmo gudahood ayuu soo dhamaan doonaa. gaar ahaan wuxuu yiri webiga ama dooxada Litani ee koonfureed ee wadankaasi Lebanon kuwa jooga maalmo gudahooda ayaanu hubka uga qaadayna. ra'iisul wasaare Nawaf Salam wuxuu kale war-saxaafadeed uu soo saaray uu ku sheegay in ay dabcan fulinayaan qorshaha Mareykanka iyo Israel ay rabaan inaan nimankan hubka laga dhigo waanu ka dhigaynaa maalmaha soo aadanna waxaa la arki doonaa buu yiri nimankan oo gacmo laalaasan oo aan wax huba gacanta ku haynin. Israel iyo Lebanon ayaa isku raacay in Israel iyo Lebanon ayaa heshiis gaaray iyadoo Mareykanka ay dhexdhexaadinayso bishii November 2024 waxaana qorshahaasi u ahaa in dagaalka iyo duqeymaha Israel ay joojiso, laakiin Israel way joojin weyday duqeyntii dib ay u soo celisay magaaladii way duqeysay. arrintaas marka waxay keentay in kooxdii Xisbullah iyaguna ay yiraahdaan heshiis baa la gaaray Israel way jabisay oo madaxdeeni bay beegsatay saa darteed dagaalka hadda buu dib u bilaabanaya. marka Israel intaan la gaadhin ba ninkii Israel la shaqeynayay ee Mareykanka ee ra'iisul wasaaraha Lebanon ahaa Nawaf Salam ayaa wuxuu leeyahay maalmaha la isiiyo si nimankan hubkaan uga dhigo. nimankana waxay leeyihiin dagaal baanu ka xignaa. taa macnaheedu waxa weeye ciidamo dowladda Lebanon ka tirsan iyo ciidamo Xisbullah ka tirsan oo dad reer mataqaanaa Lebanon uun ka wada tirsan oo reer Lebanon ah ayaa wada dagaalamaya. oo weliba Mareykanka wuxuu gawaari ka iibinayaa Lebanon oo waxa uu leeyahay gawaari iyo hub waa lidin siinayaa haddii dagaal ay rabaan Xisbullah la dagaalama. taas macnaheedu maxaa weeye in Israel iyo Mareykanka ay dabcan kooxdan ay ku mashquuliyaan dagaalka Lebanon iyaguna sida uma fahamsana. marka qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada yaab kale ayaanu idin haynaa. waa tii Mareykanka shalay
uu duqeeyey ilaa iyo 70 goobood oo wadanka Suuriya ku yaala Daesh uu duqeeyey warka soo baxay waxa weeye dawladii Carbeed ee Jordan ka ahayd ayaa ciidankeedii cirka iyaguna waxay duqeeyeen wadanka Suuriya IS meel ay joogeen ama Daesh meel ay joogeen ay duqeeyeen militariga warka soo baxay ayaa lagu sheegay war saxaafadeedkan militariga Jordan ka soo baxay waxay yiraahdeen ciidamada militariga ee Jordan ee xagga cirka ayaa dabcan ku biiray kuwa Mareykanka ee duqeynaya wadanka Suuriya 70 goobood baan duqeynay dad fara badan baa la dilay oo ka tirsan Daesh marka waxa la isweydiinayaa meeshaas askar American ayaa lagu dilay oo Jordan laguma dilin maxaad mataqaanaa u duqeynaysaa wadanka Suuriya oo Mareykanka aad u horboodaysaa marka warbaahintii Jordan iyo tii bariga dhexe aad baa looga hadlayaa waxa la leeyahay dalalkii Carbeed ba Mareykanka wada shaqeynayaan oo la shaqeynayaan duqeyntaasi Trump wuxuu yiri laba askari oo Mareykan ah iyo nin turjumaan ah oo Mareykan ah oo la dilay wadanka Suuriya lagu dilay toddobaadkii la soo dhaafay ayaa loogu argudayay Mareykanka markii dambe waxa uu sheegay 5 xubnood oo Daesh ka tirsan inuu halka ku dilay bal qiyaas 70 goobood oo wadanka Suuriya ayaa Jordan iyo Mareykanka ay wada duqeeyeen haye 5 qof oo kaliya oo dagaalyahanadaas ka tirsan oo hogaamiyahoodana uu ku jiro ayaa la dilay marka waxa la filayay maadaama 70 goobood la duqeeyay in dabcan qasaaro xoogan kooxda uu gaarayo laakiin ma uusan gaarin oo 5 qof oo kaliya ayaa la xaqiijiyay oo hogaamiyahooda ku jira in halka lagu dilay laakiin arinta Jordan maxay kula tahay adigu qaybta hoosena wala wadaag in Jordan iyaduna dagaalka ay soo gashay duqeynta ay soo gashay oo wadanka Suuriya ay duqeysay waxay kula tahay Carabtii oo dhan inay Mareykankii u adeegayaan mise waxay kula tahay dabcan in arintaasi ay iska caadi tahay oo heshiisiyo siyaasadeed uu jiro oo la wada dhowrayo waa tahay aragtidaada nagula wadaag qaybta hoose daawadayaal qodobada ugu dambeeya ee barnaamijkeena aynu galno Israel iyo sidoo kale Trump ayaa hadda qaati kala taagan meel xun bayna ka maraysaa Trump iyo Mareykanka ayaa xayiraadii ka qaaday iyo cunaqabateenadii qaar kamid ah ee saarnaa wadanka Suuriya maxaa yeelay markii Bashar Xaafid al-Assad wadankaas Suuriya uu joogay cunaqabateen ayaa dhinac kasta laga saaray wadanka Suuriya sanad baa laga jooga hadda markii Bashar Xaafid al-Assad meesha laga ciriyay cunaqabateenadii ayaa Yurub iyo sidoo kale dalal kale ay ka qaadayaan wadanka Suuriya ugu dambeyntiina dabcan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cunaqabateen dabcan culus oo saarnaa hogaamiyaha madaxweynaha wadankan Suuriya iyo sidoo kale wadankiisaba ka qaaday laakiin Israel ayaa arintaas u aragta qalad weyn oo la sameeyo Trump ay u tagtay waxay tiri Trump cunaqabateenadan saaran wadanka Suuriya qaarkood ha lagu sii hayo nimankan ama wadankan yaan laga qaadin laakiin Trump uu diiday wuxuu yiri arintaas suuragal ma ahan caalamkii oo dhan ayaa isku raacay wadankan in dib u dhiskiisa laga wada shaqeeyo ra'iisul wasaaraha maamulka Israel ayaa u tagay oo telefoon kula hadlay baa Trump waxa uu yiri ku hay cunaqabateenada qaar kamid ah oo yaan laga qaadin si cadaadiskaasi loogu hayo wadanka Suuriya horumarna aysan u sameeynin ciidan aysan u dhisanin aysan noqon wadan Carbeed oo dabcan maqaankiisii dib ugu soo noqonaya laakiin arintaasi Trump waa uu ka soo horjeestay wuxuu yiri Congress-ka Mareykanka ayaa cunaqabateentan hore u saaray haddana cunaqabateenadaasi waa laga qaaday oo iyaga ayaa ka qaaday marka aniga wax aan ka sameyn karo ma jirto Israel maxay u doonaysaa in wadankan Suuriya cunaqabateenada saaran ay sii saarnaadaan sababtoo ah waxay rabtaa in wadankan meelo ka tirsan ay qabsato haysato oo ay dabcan u aragto inay Suuriya ba Israel ay leedahay sida Gaza ay haddaba ay u sheegato qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku aadan nagula wadaag ha iloobin subscribe inoo saarto sidoo kalena aragtidaada qodobada oo idil aad ka soo dhiibato maalin wanaagsan ayaanu idin leenahay ha iloobin inaad dabcan fikradaada nagu beeriso